wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi saakay ay ka dhaceen dagaalo iyo duqeymo culus oo ciidamada dawladda ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka Daarunacma ee gobolkaasi laakiin warar hordhaca oo soo baxay ayaa sheegaya in ciidamada dawladda ay isaga baxeen deegaanka Ceel Cali Axmed oo la xusuusto in maalmihii ugu dambeeyay dagaalo qarar ay ka dhacayeen isla markaana si aad ay u dafaaceen ciidamada deegaanka oo kaashanaya militariga Soomaaliya Ceel Cali Axmed waxay ahayd marin muhiim ah ama furin dagaal oo istiraatiiji ah degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan wararka soo baxaya ay sheegayaan in halkaas ciidamada dawladdu ay isaga baxeen waxa ku sugnaa taliyaha ciidanka lugta wuxuuna gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo ciidamada dawladdu halkaas ay isku urursanayaan wararka qaar waxay sheegayaan in xeelad ciidan ay uga baxeen ciidamada laakiin aysan si toos ah magaalada markaas uga bixin wax dagaalana uusan ka dhicin Ceel Axmed waxa la xusuustaa 25 nin oo ka tirsan ciidamada deegaanka ee Macaawisley in 5 kamid ah la dilay 10 ay dhaawacmeen halka 10kii kale ay si aad uga dagaalameen ayna u babac dhigeen in ay la dagaalamaan kooxda al-shabaab muddo ku dhow 48 saacadood laakiin ciidamada dawladdu ay magaaladaas isaga baxeen inkastoo arrimo ciidan ay tahay oo saraakiisha qaarkood ay sheegeen in tactica dagaal iyo soo kale falsafado ay adeegsanayaan hoggaanka ciidanka ay uga baxeen haddana dhagaha shacabka ma jeclaysan in Ceel Cali Axmed oo la ogahay sida ay muhiim ugu tahay degmooyinka aadan yabaal iyo deegaano kale oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe ay xilligan ka baxaan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaaliga ee Soomaaliya wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidamada dawladdu ay banaanka magaalada iyo inta u dhaxaysa aadan yabaal iyo Ceel Cali Axmed si aad ay u dhooban yihiin iyadoo oo baarisyo iyo soo kale howlgallo kala duwan ay halkaas ka soconayaan al-shabaab waxay wajahayaan culeysyo muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo oo dawladdu ay fulinayso howlgallo ka dhan ah kooxda waxaana subaxnimadii saaka ahayd weerar al-shabaab ay ku qaadeen meel u dhaxaysa Beerayabaal iyo soo kale Aboorey ay kala kulmeen jab xoogan iyadoo ciidamada dawladda si aad ay isaga caabiyeen lana dilay xubno isugu jira dagaalamayaal iyo soo kale horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab Hirshabeelle guud ahaan waxa ka socanayo howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab waxaana howlgalladaas horkacaya saraakiil ciidan oo caan ah iyadoo oo kooxda ay wajahayso muddooyinkii ugu dambeeyay khalalaaso dhinaca dagaalka al-shabaab waxay sidaan oo kale dib ula wareegeen Ceel Baraf oo iyadoo haddana dagaal aysan dhicin laga saaray waxaana muuqata in wali aysan jirin istiraatiijiyad dagaal oo ciidamada dawladdu halkii ay ka qabsadaan al-shabaab in ay ku sii sugnaadaan dadka shacabka ah waxay dhibano u yihiin marka ay soo dhaweeyaan ciidamada dawladdu dib ay uga baxayaan deegaankii al-shabaab ayaana dhibaateynaya waxaa taasi lagu eedeynaya taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuusan wali wax xal u helin iyo guud ahaanba dawladda haddii dawladdu ay xijiso deegaanada ay kala wareegto kooxda al-shabaab waxaa dhici lahayd in dadka deegaanka oo dhan ay markaasi ka soo horjeestaan kooxda al-shabaab inkastoo hadda kacdoon shacab ay tahay waxa lagu la dagaalamayo kooxda al-shabaab wixii ka soo kordhay deegaankan Ceel Cali Axmed oo ah marin muhiim ah sidoo kalena laga ilaaliyo degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkan ay kugu soo gudbin doonaa xoogga dalka waa cibaadaysteen waana raaxaysteen intaanteen kuwaas qalmadoodii cararayna ka soo saakay qaniimo fara badan ayaa nijaasada laga qabsaday qoryo fara badan looga dhargay meedkoodii meelaha daadsan ilaa iyo hadda farxadkooda la sii baacsanaya waxaan ku sugannahay deegaanka Ceel Cali Axmed oo dagaal aad iyo aad u qaraar 24 saac ee la soo dhaafay uu ku dhex maray kooxda eeyaha naarta khawaarijta al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Macaawisleyda oo iskaashanaya dagaal ay ku soo qaadeen halkan oo ka socday 24 saac gudahooda uma suuro gelin in ay magaalada si dhameystiran u qabsadaan waana ugu dambeyn lagala wareegay magaaladii waqtigooda ayaa daafaha magaalada dhooban oo ilaa iyo hadda farxadkooda ayaa la sii bursanayaa kooxdani waa koox abaabulan oo qadiman isla markaana go'aan ku soo qaatay inay ama wada dhintaan ama ay hadafkooda baadilka ay ka dhabeeyaan balse dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna go'aansaday in ay ama wada dhintaan ama ay iska celiyaan nijaasada waxyaabaha cajiibka ah ee dagaalka 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay deegaankan Ceel Cali Axmed waxa kamid ah in rag tiro yar oo ka kooban 25 qof ay al-shabaab u diideen in ay magaalada la wareegaan al-shabaab ayaa hareereeyay go'doomiyay isla markaana dhinac walba ka soo weeraray hase ahaatee jilbaha ayay u laabteen qaraxyo ayay ku soo weerareen oo ay doonayeen masaajidka oo ay ku jireen in ay ku dumiyaan balse dhowr qarax banaanka masaajidka ayay ku fashiliyeen halka mid kamid ahna uu ku dhacay derbiga masaajidka ilaahayna uusan u soo talaabinin in dadkaasi ay waxyeello u geystaan
kooxdu waa koox markan awood wixii ay haysteen aan soo dib dhiganin waxay halkan ku soo weerareen 10 gaari oo 2 gaari ay qarax tahay 8na ay tigni ka tahay 2 gaari kamid waa laga gubay 6 gaarina hadda ayaa la baaxsanaya oo firxadkooda ayaa lagu daba joogaa hadda deegaanka Ceel Cali Axmed waa mid nabad ah waxaana la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee Macwiisleyda kuwaas oo ka kala yimiday deegaano ka fog deegaanka Ceel Cali Axmed oo gurmad ahaan halkan ay u yimideen insha Allah ta'ala waa ama guul ama geeri baawrku waa qarax waana soo socyaa markii la yiri nin walba wuxuu ku tala galay inuu mihiisa ku dhinto uusan meel u dhaqaaqin magacayga waa Cabdi Maxamuud Suubi oo loo yaqaan Cabdi Wabiir meeshan waxa dagaalku noogu qabsaday iyo sidan shabaabka isaaga celinay 12 saaco habeenimo masaajidka aan ku jirna ay meelaan ka filay naga soo galeen taliyaha ururka Cabdi Dheere oo naga koofuraysay xabada ku bilaabeen annaga markaas waa noo shib dhaheen kadib 15 baabuur waxa ku timid jidka waqooyi oo 2 baabuur oo qarax iyo 8 baabuur oo ayaduna socoto oo dhashiikayaal ay nagu yimideen markaas kadib waxay nagu bilaabeen dhashiikay nagu bilaabeen waxay nagu bilaabeen baalka dhihi jiray inshaag suugay nagu bilaabeen baabay nagu bilaabeen iyo baadniin waa iska celino minaaradaha kolaan inta raacnay baaka eman indhuhu uga bajinay iyo sabin waa naga naqdeen gadaalay nooga naqdeen baawur qaraxa noo soo dib dhaafay baawurka sabinaan ku dhifanay mihiyow ku qarxa asuguna intaas markay aan sameynay ciidankina oo wali naga koofurayso nagu soo rogaal celin baawur kale oo qaraxa yimid Leyla Calaawi meel yar oo baqsaneed oo masaajidka bari ka ahayd oo soo galay darbiga masaajidka uu noogu dhiftay marka uu noogu dhiftay baawrku waa qarax waana soo socyaa markii la yiri nin walba wuxuu ku tala galay inuu mihiisa ku dhinto uusan meel u dhaqaaqin baawrku sabin waa weyn markaas aan ku dhifano marka uu nagu dhiftay waxa yimid ciidankii baahalahaaya korna koofurna ka soo noqday barina ka soo noqday waqooyina ka soo noqday afarta koona ibn laga heesteen markaas waxaan la dhacna liif iyo BKM nin kastaba wuxuu Ilaahay baray intuu baadiyaha joogay oo liif yaqaano la dhacay waa kuwa mahaas 20 hadda waa mahaas taalo adunka aad soo sawira kartiin markii baawrka la gubo waa ka mahaas yaala markay maaran noo waayeen iska raacnay 2 kiiloomitir noo soo dhaaf waayeen beledka gudihiisa iyo masaajidka 2 kiiloomitir u soo dhaaf waayeen bartaasan isaaga celin 24 saac ay go'doona galsheen dhaawaci iyo dhimashadii iyo ninkii noolay saddexduba masaajidkan aan ku kor joognay 12 markay dhacday dawladdu noo timiday intaysan dawladdu noo imaanaan mootooyin ku qaadnay dhaawac mootooyin ku qaadnay asaan waxaan ugu geynay dawladdu waa soo dhaaf weysa meel halkaas meena dhulka loo dhigay iyo la wareegna dhulkan anu kala naqanaan dhaawac u geynay dawladda markaan dhaawac u geynay dawladda kadib jidkii soo furatay saasa xal 2 saac nooga yimid 24 saacna saasan u dagaalamayna ilaa 48 saacadood nooga yimaado oo dad islaam uu nooga yimaadana inaan kul nin inta in loogu yimaadaan rabna ma ahayn nin nool in loogu yimaado lama rabin anu oo shaw ugu yimaado gudaha ku jirtay waxaan gudaha ku jirnay 25 nimaan ahayn 5 dhimasho iyo 10 dhaawac ay naqdeen 10 waa soo hirtay 10 meeshan ku badbaasay 24 saac ay shabaab kula dirireysay xabadii waa naga go'een lift waan ku dilayna ma ahan xabada kala ridi maahin markay nagu soo dhawaadeen 2 farqab ama 3 farqab dhowr beeka ama haysanay ay mugoy mahay nooga soo dhawaatagana isaaga caawin asay naga sikahay aykoon saasa dawladdu nagu soo gaartay xalay adinkuna maxay ahaydeen ciidan dawladda mas'uul anagu waxaan ahayn Macwiisleyda magaalada Ceel Cali Axmed kana tirsan dawladda Soomaaliyeed